السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي سودوا channel كأجد داون سوون برواني عدي فضلنا هذا كعسب تمرول بإذن شيء لايك my video subscribe my YouTube channel هذا كيشيد ما أنت مش وحيدن كوها يا reaction أيام تام social media وحوريجي نندلا يرى يو asagoo guursaday afartiis xaas oo yani social media wareegay dadka badana waxay uga hadlayeen yani reaction oo negative marka maanta reactionkaas aan ka qayb qaadanayna laakiin waxaan ugu qayb qaadanaynaa wado ka duwan wadada social media loogu hay si positive ahana ugu qayb qaadanayna reactionkaas maadaama yani wax fiican oo lagu daydo ninkas dhalinyarada uu sameeyay ma sha Allah horta aad u hambalyeynaya marwaad maadaama afar xas leeyahay waxaan leeyahay ilaahay ku barakeeyo familkaaga ilaahay ku barakeeyo afartada xaas ilaahay ku barakeeyo caruurtaada insha Allah dhamaantood ilaahay ku barakeeyo horta ma sha Allah dhamaantood wax lagu daydo oo fiican qurux badan ay sameeyeen aasaska iyo saygoodaba dhamaantood wax fiican lagu daydo sameeyeen waxaan leenahay oo mahadsantihiin marka koowaad maadaama ummadda Soomaaliyeed yani indhaha u furteen waxaan way jireen diinta islaamku way noo ogashahay in afar xaas la guursado laakiin waa hadii cadaalad loo falaayo ninkaana sida muuqad xaasaskiisa waxa waay cadaalad buu sameeyay ma sha Allah ilaahay u barakeeyo qofkii awoodo inuu afar xaas guursado waa marka hore inuu afartooda cadaalad u falaa tan haduu baat u soo gado tan kale baat u soo gada soo marka cadaaladaas hada sameyn kartid mar walbo naftarkay waan kugu dhiirigelinayaa inaad afar xaas guursatid marka videogooda aan daawanayna insha Allah iyo xaasaska fikradda ay ka qabaan maadaama saygooda afar xaas uu leeyahay marka videogoodan daawanayna insha Allah videogooda ay shalay daraad social media wareegay marka dadka si qof walba si oo yani reaction ugu soo bixinay laakiin maanta waxa jecelnahay in aan si positive reaction ugu soo bixino maadaama wax fiican oo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo kordhiyeen marka videogooda aan daawano insha Allah wixii markaas aan yani ka falcelin karno haddii fiican yihiin haddii xun yihiinba markaas waan ka wada hadlaynaa daawasho wacan magacayga waxaa Mar Xuseen Aadan xajigayga waxaa is guursanay 2015kii bishii afraad ma sha Allah waa ku faraxsanaa waan ku saaciday inuu xaasas kale ila soo guursado anaaba ku taageeraya wallahi inaan ما شاء الله كودان كواد يعني بهوينت guriga ما شاء الله way ku faraxsan tahay maadaama uu yani ninkeeda uu soo guursaday afar xaas kale saddex xaas kale guriga keenay ما شاء الله aad ugu faraxsan tahay waxa marka wajigeeda aragtid xataa waxa ka dareemaysaa yani in farxadeedii xad dhaaf tahay maadaama yani oo gurigeeda habla kale la keenay gabdho kale la keenay ما شاء الله waxaan leenahay ilaahay ku barakeeyo ninkaaga caruurtaada reerka la soo wada dhameystiro oo afarta uu xiro raalligan ka ahay assalaamu calaykum ما شاء الله hadalka hadda dhahay waxay dhahay in reerka la soo dhameystiro oo afarta uu xiro raalligan ka ahay gabar Soomaaliyeed maanta oo yani ku dhiirato inay saas dhaxdo ma jirta u maleynaya gurigan in la soo buuxiyo oo afarta la soo buuxiyaan raalli ku ahay gabar Soomaaliyeed dhaheeso ما شاء الله tanaan ka arkaa wallahi waanu ku faraxsanahay maadaama yani maanta aan daawanayo dad badan bay dhiirigelin u tahay gabdho badan waliba ay dhiirigelin u tahay rag badanba marka hore aan u daawano videoga magacayga Farxii Jaamac waaye ana waxa xaaskii labaad waana ku faraxsanaa gabdho kale inay iga daba imaadaan oo ku faraxsanaa ani xaajiga waxa is guursanay 2018kii waana ku faraxsanaay wana ii sheegay inuu laba xas leeyahay caruur ay u joogto ma sha Allah sidaas aan ku soo galay inay mid iga dambeysana waa la ii sheegay ma sha Allah waan ku soo dhaweeyay waan ku taageeray gabadhan saddexaad yani unbelievable way yani waxay dhahday guriga inuu laba xaas iga horeyso waan ogahay tu kale inay gadaashay imaanaysana waan ogahay saas darteeda guriga waan soo galay waan ku faraxsanaa gabar Soomaaliyeed aqbalaysa ma jirto in yani guri la soo geliyo gurigaas oo laba xaas ka horeysay midda ugu dambayso afaraadna la soo gelin doono waliba loo sii sheegay ay ku aqbashay wallahi wax kale ma dhigi kartay waa magic xataa ma dhigi kara unbelievable ما شاء الله gabar Soomaaliyeed oo saas dhaheeso waxa waaye waxa lama filaan laakiin way dhacday
gabdhaheeda Soomaaliyeed waa u jeedaan walaalihiina se nimankooda yani ugu qanacsan yihiin wax walba u dhaco. marka gabdhaha nimanka ku adkeynayo magaciisa waxaa rajeynayaa inay u fududeeyaan oo hadduu xabad kala rabo dee hadduu xabad kala rabo inay u cafiyaan, inay u fududeeyaan oo soo guli guriga ay dhahaan walaasheed waaye mar walba inay ku faraxdo waaye, gabar Soomaaliyeed waaye, gabar muslimad waaye, mar walba inay ku faraxdo waaye. So marka waa maasha Allah dhehna gabadhan. waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo mideed haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddex xaas haddii uu guursado oo awoodeeda ka soo bixi karo in lagu taageero. maasha Allah fariin gabadha saddexaad fariinay waxay u dirtay gabdhaha Soomaaliyeed mar walba yani videogan horta waa message asagoo dhan oo ummadda Soomaaliyeed loo diray, laakiin ayada gaar ahaan waxay fariin u dirtay gabdhaha Soomaaliyeed. waxay dhahday ninka hadduuba cadaalad falayo ha loo ogolaado inuu afar buuxiyo. niman yahow haddaad cadaalad falaysaan oo labadii aad soo guursataan ama saddexda soo guursataan cadaalad u falaysaan, dhexdooda cadaalad aad ka sameynaysaan, waa laydin ogolaanayaa mar walba inaad xaas kala keentaan, laakiin isku daya mar walbo inaad faamilkiina iyo xaasaskiina aad cadaalad u fashaan. ilaahay baa ku mahadsan isku imaashaha maanta aan halkaan isugu nimid alxamdulilah. aniga magacaygu waa Naxwa Cabdicasiis. guurkaygu wuxuu dhacay 2019 bishii 10aad 25teedii Oktoobar 25teedii. waa dumarka iga horeeyay way ku faraxsanayeen xaqiiqatan sida aan dareemayo, maxaa yeelay annagoo oo wax xiriiro markaa dee inaan museyga aan isqabin unbay isoo wada xiriirinayeen dhammaantood. dabcan qofku markuu ku soo xiriiriyo iyo markuusan ku soo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhaxaysa labadaas. marka maasha Allah saddexaas inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin, inay imaashayga ku faraxsan yihiin, intaba waa la ii sheegay. waana ku faraxsanaa markaan soo galay maadaama ay yihiin qoys faraxsan dee noloshooduna ay tahay nolol powerful. dabcan anigana sidaas aan soo galay. sida dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aad u wanaagsan. gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay dee xanuun kale uu iska jiro, gabdhaha kala garab siiya, caawiya dhinac walba. maasha Allah gabadhan afraad ayadana point kale taawatay, pointkaasoo ah in yani faamilka dhexdiisa xataa gabdhaha dhexdooda xataa xiriir oo ka dhaxeeya mar walba. maxaa yeelay hal say wadaagaan saygooda, yani qofkan haddii gabdhaha gabar ka mid ah xanuun ku dhaco ama yani ilmaheeda uur ay leedahay ama umul ay gasho, way caawinayaan, way isku yimaadaan, way iscaawiyaan. what a beautiful message in ay isku imaadaan kulligooda iscaawinayaan. hadda xataa waa ujeedaan afartooda waxa waaye video way ku wada jiraan oo way wada qoslayaan oo waa kamerada waa ka daawan video waa ka daawan kartaan. so beautiful. so marka waxay cadeynaysaa faamilkooda inuu isku xiran yahay, waxay cadeynaysaa everything around them, yani wax walbo oo negativity oo dhinacyadooda jooga inaysan saameynin. maasha Allah anna waxaa leeyahay wallahi hore u socday hambalyo hambalyo dhahaya. maxaa yeelay say fiican ay heleen, waxay heleen asxaab, waa saaxiibo ayaga naftarkooda, waa yani waa naaga labada qabo oo hal qof wada qabo ayagoo dhan, haddana saaxiibaha, haddana iskaalmeeyo, haddana wax walba ilan hal ninaa ka dhexeeyay. waa family usra af carabi saasay dhahaan. so marka wallahi it's beautiful. let's keep watching. faamiligan waa faamili isku faraxsan. faamiligu hadduu isku faraxsan yahana anytime waxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan, garab banaani ma jirayso. waxaa jira baraha bulshada in qoyskeena aad iyo aad loogu mashquulay, annagana wax oo diinta ka baxsan maana suubin. shacabkeena Soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan, maadaama anaka diiniyan wuxuu Ilaahay na fara aan suubina, sunnada rasuulka aan suubina, wax lagu mashquulo maana suubinin. asxaabteeda Soomaalida waa maqlaysaan fariinta gabadhan ay dirayso. waxay dhahday ayaantan baraha bulshada aad ay noogu mashquuleen,
mashquulkooda waxa waaye waa zaa'id waaye camal marka ayagu waxay annaga ma sameynay dhan waxaan ilaahay raali ka ahayn waxaan wax sunnada khilaafsan maana sameyn balse waxay sameeyeen wax ilaahay raali ka yahay oo sunnadana raacsanta waana runteed yani rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay man istataaca minkum albaata falyatazawaj ninkii awoodo inuu guursado 1 2 3 4 inuu guursado ha guursado laakiin waa inuu cadaalad u falaa soo marka ayaga gabdhahan Soomaaliyeed quruxda badan waxay heleen wax cadaalad u falo heleen ma sha Allah wayna ku dhageen way guursadeen waana ninkooda soo marka gabdhaheena Soomaaliyeed masaakiintan gabdhahan quruxda badan yani social media sida negative ka looga hadlayo hal laga joojiyo ina ku dadaala ina dhahdaan Ilaahay idin barakeeyo qoyskiin Ilaahay idin barakeeyo ninkiin Ilaahay idin barakeeyo ina dhahdaan ku dadaala inaad caaysan iska dhaafo insha Allah marka shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wada anaka wax qof lacag nagu siiyo ma lahan reerkeena oo ku faraxsanahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegeeno dad waxay dhahay tartiib anaga reerkeena ku faraxsanahay xaajigeena wuuna qabaa soo marka taasaaba idinku filanbo inaad yani gabdhahan quruxda badan aad yani markaad reaction ka soo bixinaysaan ama markaad aragtaan inaad yani u duceysaan leemahan inaad yani ka joojisaan inaad qadaf ku tuurtaan idinkeena dambi idinku tahay la socda qaarkood waxay leeyihiin iskooley waay qaara oo leeyihiin adeerkood waay adeerkeena ma ahan waa xaajigeeni nolosheena wax macquul galay ma ahan yani gabdha iyo ninkooda isla socda inaad dhahdid yani iskooley waay ama ninkan adeerkood waa inaad dhahdid wax macquul galay ma ahan soo marka fariina idin reebtay bahweynta guriga fariina idin reebtay waxay dhahdaan ugu mashquulina yaa lagu mashquulin balse inaad u duceysaan maan familkan wax khayr badan ee soo bandhigeen ummadda Soomaaliyeed tuseen in afraxaas la naqan karo in gabdhaha isku tasaamuxi karaan ninkooda u tasaamuxi karaan gabarba gabadha ka dambaysa la keeni karo so wax walba tuseen marka anaga nagala baahan yahay in aan yani oo ku daysano ayaga hadiiba aan kari karno inaan ku daysano hadaadan ku daysan karin de maba kartidbo laakiin inta ku daysan karto ku dayso balse inaad caysid reaction xun ka soo bixisid waxyaabaas kiilaal insha Allah familku waxaan leenahay waanu duceynaynaa Ilaahay idin barkeeyo Ilaahay ninkiidan idin barkeeyo ninkan waxaan leenahay Ilaahay gabdhaha xaaskaaga Ilaahay ku barkeeyo xaasaskaaga Ilaahay ku barkeeyo carruurtaada Ilaahay ku barkeeyo familkaaga Ilaahay ku barkeeyo annagana kuwi yani ku daysano khayrkaaga Ilaahay hanaga dhigo insha Allah dhamaanteenaba ragga Soomaaliyeed waan wada rajaynaya aadaan u maasantiin video waxa ka daawanaysaan channelkayga Barwaani Cadde waa anigu Cabudi fadlan hada channelkayga ka heshid subscribe like everything ku soo dhufaa hadaad awoodid waay hadaa awoodid sidoo kale share garay videogan quruxda badan aadaan u maasantiin assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh peace out